wanaagga u dhowrayo geesiga dhalandhoolaye dhulkiisa u heegane inuu cadow soo dhacayo dhibaatada diidayo geesiga dhalandhoolaye dhulkiisa u heegane inuu cadow soo dhacayo dhibaatada diidayo taageerayaasha xisbiga muxaafadka talada dalka haya kulmiye ayaa saaka dabaaldegyo ka dhigay degmada Qurlugud ee gobolka Bohole kumanaan kun oo qof oo ku labisnaa calanka xisbi xaakimka talada dalka haya kulmiye ayaa gaartiyo socdaal dheer ku soo maray jidadka waaweyn ee degmada Qurlugud waxaana qayb laxaad leh ka qaatay ururada ka dhisan degmada Qurlugud sida ururka la dagaalanka qabyaalada aato hidaha iyo dhaqanka ee Dakaab Nagaad iyo Now kumanaankan qof ee dadka taageerayaasha xisbi xaakimka kulmiye ayaa muujinayay taageerada ballaaran ee xisbi xaakimka talada dalka haya kulmiye kuleeyahay guud ahaan deegaanada gobolka Bohole gaar ahaan degmada Qurlugud waxaana kala qayb galay wasiiru dawladda xanaanada xoolaha Soomaaliland injineer Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraa waxaana isugu soo biyo shubteen geedka weyn ee Halleeye ugu horreyn waxa halkaas khudbad qiiro badan dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya kulmiye degmada Qurlugud Aadan Raangis kaas oo ugu sheegay in loo qusgooyay xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee maalmihii u dambeeyay waxaana ka sameynayay deegaanadaasi xisbiga kulmiye ee degmada Qurlugud aad baan idinku mahadnaqayaa sida fiican u soo baxdeen ee u dalbaadegteen ee cududiina u muujiseen waa ismuujiseen waxa cadayseen maanta inaan kulmiye mooye wax kale ka jirin degmada Qurlugud kulmiye mooye inaan wax kale ka jirin degmada Qurlugud baa muujiseen aad baan idinku mahadnaqayaa sida fiican ay yeesheen ee cududiina u muujiseen ee sheegteen inaan kulmiye mooye wax kale ka jirin waxaan u sheegaynaa shacbiga Soomaaliland gudaafihiisa kala duwan inaan degmada Qurlugud kulmiye mooye wax kale ka jirin waad ogtihiin waxa la sameeyay foojarina ma socdo meel la kama shaqeeyo marba ciyaal meelaha la geeyay oo foojari Qurlugud waxba kama bedeli karaan hayaa kaar baan ku hayaa maaha maalinta codaynayaan ku soo baxayaana maaha taageeradu waxa weeye si mugle oo sidaas oo kala in loogu soo baxo maalinta ay tahay codaynta mudane Muuse Biixi adiga codkaan iskale waliba madaxweyne caana codkaan iskale caruurtiya dumarka duqowda ku caashaqeen inta aqal dunida joogta codkaaga jecel inta naatimi iyo inta inaga maqan iyo inta ida jecel iyo inta ciyaaraysa in ilaahay guuleeyo xisbiga kulmiye ha guulaysto ilaahay idankii ha guulaysto runtan isugu yimi baan aad u salaamayaa maanta wadani waynu ka soo ridanay wixii ay ku faarayeen waa been wixii naga tagayna waa soo celinaynaa wixii naga harayna waa soo saaraynaa waxba iskula hari mayno waxaynu isugu soo baxnay maanta inaynu muujino cududeena xisbiga kulmiye si aynu taageersanay iyo sidaynu ugu midownay soo guusha kulmiye male soo kulmiye ma taageersanin soo Muuse ma taageersanin soo cududeena ma muujino waxaan leeyahay Allahu akbar Soomaaliland ha noolaato xisbiga kulmiye ha guulaysto mujaahid Mustafa Cabdi ha guulaysto salaan kadib halkaani waxa weeyaan degmada Qurlugud dadka reer Qurlugud waxay ahaayeen dad go'aan iyo hal adeeg leh dad lagu yaqaan go'aan shiraac maaha dad ay u cadahay wadada iyo halka ay codkooda marinayaan weey dad maanta la khaldi karo dad waxyaabo kale loo sheegi kara maaha kii galbeediga jiraan gasnayga raacin gashankaada ragii gurada no tuuray gacalkuba sidii uu ahaa garabna sinayay hurtida tolkeen weeye iyo ganka saacad Muuse xisbigiina kulmiye taageertaan waxa u taagantihiin inaad xisbigiina codkiina siisaan waxa u taagantihiin sida oo shaqayn lahaydeen bulshadiina iyo xisbigiina iyo dawladdiina iyo xukuumaddiina waxaynu aad ugu hambalyeynaa waxaan maanta kaadna waa bogaadin dad hadalkii waxay dadkii hore waxaan anigu laba qodob baan ku darayaa waxa weeye waxa uu kulmiye wada ma aha wax iminka la bilaabayo ama la qorayo waxa la yaabuuga qoran
kaasaa la hayaa buuggaa qoran buu kulmiye hayaa gabagabadina wasiiru dowlaha xanaanada xoolaha Soomaaliland Injineer Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaara ayaa sheegay in la marayo waqtigii guusha ee xisbi xaakimka talada dalka haya kulmiye waxaanay geeyina ku iibinina waxaanay geeyina ku garoocanina waxaan waxba idin tarayaan leedu ku wareejin aad iyo aad baa u mahadsan ha garoocanina guusha ilaahaydiisiya ha garoocanina guusha ilaahaydiisiya ha garoocanina waxaanay geeyina ku iibinina waxaanay geeyina ku garoocanina waxaan waxba idin tarayaan leedu ku wareejin aad iyo aad baa u mahadsantihiin ducada telefishinka caalamiga ee bulsho degmada Qorlugud Buuhoodle.